dadka midhaha suugaanta maqlaya ee gorfaynaya inta magaca Soomaali ku bahawda muuneeye hordhacana ku maamuusay midigtana ayaga saaray masalooyin aad sheegtay dhegta maqasha diidaysay isku wada murgo soohmay adigoo ku yiri maanso moobilka la wada qaatay marna iibsan kari waayay imikana maxaa keenay milyan baan ka soo dhiibay adigoo mahwiga keenay bulshadiina maqashiyay oo nayiri wakaa maanta xabad laygu maamuusay imikana maxaa keenay milyan baan ka soo dhiibay alla maganayaa weey muran iyo hogseeg weey majaraha kabeed weey isma keeki dumar weey mukurkan ka digay weey single mother taad sheegtay anigoon cidnaba maagin waxa lagaga maarmaaba tu yaro macnaha guurka hadba make-up iibi ama mobile ii soo gad weligeedba moodaysa ka mug weynsataa heed talo aan markacay qaado dahabkiiyo murriyadiin maryihii xarragadiin rabbigii macbuudkaaba nooga dhigay mas'uul taase ha ka baqin masruufkaaga hanku yaanu maal raacin oonay lacagi kuu muuqan ha ka dhiganin miisaanka mari kara gayaankaagu nin wuxuu mar horay sheegta ama magac ku doondoona ama media keena ma ahayn setaad huunno moobilkaad in badan doontay markaan midigta kaa saaray igu maagtay baan diiday imikana ha murugoonin hays odhan mistake-gaagu qalbigiisa wuu maydhay muxubbada kalgacalkeennu wax intaa ku jaba maaha isu muhasho romantic iyo waa mushkilad reebe maslaxaad ka dhigataana tixda waxaan ku soo moos kordhi meherka waa doode mid ku soo dar waa doode bedel midabkan waa doode bahalkan u diray Moscow markab qurana soo saaray qof kale igu maamuusay tu macquula noqon mayso inta maqan nasiibkooda inta joogta madasheena kulligood mudnaan gaara iga mudan kalgacal buuxa marxabiya salaan deeran moobilkan ku uruhuno waa la igu maamuusay marna aan ku uriheedhe maal baan ka soo dhiibay haddaad ii maleynaysay naag been mahwiga keentay adigaan maraa waaxid islahaa miskiinkaagu uu masayri doonaaye adoon murug ku beeraynin ku dheh midabka noociisa milyan baan ka soo dhiibay anoon maagin dumarkeena single mother tan sheegay qof xun maaha oo ceeb leh waa hooyo maamuusan nin mas'uulo uun weyday calafkuna midaan haysan madaxda ku soo beegay midda aanu jeedaase marwo weeye ubadkeeda meel sare intay geysay kaligeed mushaaxaysa hadba meesha ay doonto adigana markaan eegay jeebkaagan maran huuno meherkaaga goynaysa duunyada wax weyn moodin sadaqada milyoomaad qof muslimkaba cidii baahan ugu deeqda muruqeeda horta waa mid igu weyne ina walawal magaciisa inta maqashay heestiisa miisaanka hadalkiisa qarni hore maqaalkiisa macnihiisa silsiladiisa hore maada hadalkiisa murankiyo ujeedkiisa isagoo midnaba haynin gabadheega muuqdheera ari meher ku doonayay marag baad ahaydeene ileen maanta noociisa ragga nool magaalkeena daraja ka soo muuqday anigoon murtida leexin maansada halkaa geynin xididkana u maahmaahin ku mashquulin hayntooda waxa aan ku soo moosay waa muhiima noloshaadu mawlow ku sii deeqdhan marna kuma fogeeyeene waxay tahay mushkiladaadu ismaqiiq la wada yaabay inta jecel mashxaradeena ha arkaana midowgeena maalmaha arooskeena maad jeebka soo buuxin mise waadi meermeerin bulshadana la meeraysan murti gabaya maahmaah duxliyo arar la miisaamay tix la maamshay eray loo mildayay meeris lagu taamay muddadii la joogaba tix iyo maansa dhaxal reebtay mahadhada intaan geliyay baan madaxu koobayne masafiya waxaan jiifta iyo haanta uga maagay masalooyinkan ka hadlayaa ila mug waaweyne iga qora bal maantana halkaan dhiga mujiibteeda midho waxaan ka leeyahay haddaad mowqif igu raacday midna waxaan ka leeyahay tolkiyo xididka maamuusan midna waxaan ka leeyahay waxaad igu malaynaysay midna waxaan ka leeyahay waxaan madasha keenayo
midh waxaan ka leeyahay haddaad mowqif igu raacday muran iyo gayaan waa u dood meher gorfayntii mashriq iyo waxay kala tagaan badi maqaariib midtid waa rag dumarkiina way mayalaadaygaane mid hadduu tanaasulo ka kale waa u mashxarad heese haddii aad ismarin waaga jiray inaga soo moostay muxubbada darteed waa inaan maalka badiyaaye horta moobilkani waa hadiyada ma aha yaradkii ha ku maararowdaan lahaa mararka qaarkood meherkana wixii kuu qalmaan maanka ku hayaaye ma og tahay misbaax baad hablaha laba muhdo u tahaye ma og tahay muftaax baad qalbiga maaxidana u tahaye ma og tahay muhiim baad u tahay ruuxda mahuraane midhna waxaan ka leeyahay tolka iyo xididka maamuusan gobannimada marag baan u hay lagu majeertaa milgihii iyo karaamaduna waa muunad goonniya madax iyo cuqaal iyo haldoor miidhan baa hage qarniyay martidu sii xusaan mahad ka sheegtaane annaguna mataanaanuna maydhax iyo laan midda geed fadhiisiguna waa meertan noo dhigane inta miyi ku nool iyo intii reer magaalaba ah inta ina maqlaysiyo intaan meeli nala joogin kolay tahay marwooyin u dhixiyo magan agtii taalla ismaaciil wuxuu mudan yahaan marin insha allah midhna waxaan ka leeyahay tu aad igu malaynaysay madadaalaha saawe iyo weliba maaweelo kaftan lala maqsuudiyo hadday mala awaal dhaafto mariin iyo gabaatiba hablaha magacu noo raaco sida aan maqaam heer saro miigan ugu soorno ee waxaanu moorada tubnaa mahadhada u reebo waa waxay markhaatiga bulshadu noogu marayaan baayacal mushtari oo dayada kama maqnaadaane milyaneeraduna waa sidii maadha geedaha mulkiga iyo hantigu waa iska muush mood iyo nool kuba alla magane taas iyada ka noqo looma meeldayni midna waxaan ka leeyahay waxaan madasha keenayo masna curatay maandeeq irmaan maahir iyo foosa miciyaha listow baarqabkiiyo qoriga maadhiina farda midabsan muruq haybadliyo maydal iyo qaaje macawiiso wada qaali iyo shaalka midabaysan maka lagu sameeyow cigaal madow ahoo duuban macdan dahab u badan oo sodoho midigta loo saaro iyo moodhikaarada jabaan moodhalka u fiican iska daaba maalkiiyo intaan meesi soo taxaye musharaxa tolka doorashada maalimaha foodka inta magaca ila sheegatiyo kii mag ila dhiiba mudaniya mas'uulaba intaan meel isugu geeyo iyagoo mafsuuday codkaba idin mihiibsiin tixda mihiindiskeediyo waxaan miinka ku idleey hawraar macaan iyo intaad miiska qodob keentay dadku waa u mashxaradeen sidii dhibic mahiigaane muftibaad jalbeebiya u tahay macallin suugaane adigaa mutaystaye bilada muuqda habka aad u maansooto ama gabay u miisaanto murtidiyo odhaahdaada maskaxdiyo garaadkaaga dadku waa mafsuudeene mudanow salaandiiran adoo moobil bixin waayey maalintaadi tidhi heerdhe maqashii tolkaa hawsha adiguna ka ima meesha kolna aadin tidhi maandhe meherkii arooskaaga maal baad u qalantaaye horta moobilkan sheegay yaradkaaga noqon maayo anoo muranka diidaya ogna mara awaalkaaga iyo weli maslaxadaada midhahayga suugaanta maantaan jawaabtaada u arkaa muhiim weyne fahan oo macnaha qaado dadka madasha joogoo dhan ha maqlaana ceebtaada waxba saa ka qarin maayo intii aad maqnaydoo dhan jira baan ku marinayay muddo waan ku dhowraayay dushaan kaa marmarinayay kaftan aan mushkilad reebin balse aad maraa waaxid marna aanad u ilaaweyn guurkaad mahwiga keentay tol sugaaye muuqaaga marwo kaa wardhowraysay ballan aad mar hore qaaday midna maad xasuusnaanin bal maxaa ku gelinayay baddan aad mushaaxayso adigoon midnaba haynin miyaad aniga gaarkayga ismaqiiq adoon dooran ma hayee adduun buuxa igu raac madhnaantayda miiseej ku soo koobtid dhan kastaba markaan eegay guurkiiyo macaankiisu qof mas-uulo oo toosan kama maarmo bilowgiisa sahan waa ma dhaafaane anigoon ku maagaynin maamuusni 100 jeere nabaday ku soo moosay
anigoo ayaan Axmed Caydid ayaan kaaba waxa inta ku soo dhamaaday qaybihii silsilad maaseedka la magac baxday iPhone 11 silsiladan oo inoo socotay muddo dhowr bilood ah laakiin ayaa ma yar aad kala socoteen bogga BBC Somali News waxa si gaar ah u mahadnaqayaa BBC Somali News waxaan mar labaad aan marnaba aan ilaawi karin walaalka Axmed Darwiish oo ah qofka muuqaalada qurux badan leh inala socodsiinayay iga duubayay marka ka dambaysa iyagoo qurux badan walaalka Cabdiraxmaan Darjawaane la'aantii suurta gashay inaan idin soo gudbino silsiladan quruxda badan dhamaantii waa mahadsantihiin Allah ha idin sharfo waa idin jecel lahay cidii rabta in ay ku soo birto silsilada waa ku soo dhaweynaynaa kale anagana bedelaysa marka dhamaantii waa mahadsantihiin Allah ha idin sharfo